بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan khayraad ka soo qayb gashay kulanka qiimaha badan ooga mahad celinayna waqtigooda iyo dadaalkooda insha Allah ta'ala waxaan galabta halkan ku qaadanaynaa mowduuc ahmiyad weyn ugu fadhiya qofka raba inuu aqoonta meel qiimo la ka gaaro oo heer ka gaaro codkayga ma la maqlayaa codkayga ma maqlaysaa okay mowduuca isaga waxa weeye doorashada takhasuska waxa weeye qofku waxa uu baranayo aqoon ahaan taas oo saldhig u ah qofkaas in uu mowduuc ama kaalin bulshada kamid ah uu guto uu kaga aado doorashada takhasuska ahmiyadda ay leedahay waxa la yiraahdaa waa ahmiyadda labaad ee ku soo xigta guurka qofka uu nolosha la wadaagayo ayaa waxa la dhahaa waa wax ugu muhiimsan waxa ku xiga doorashada takhasuska waayo qofku noloshiisa waxa uu ka shaqeynayo oo adduun ahaan uu ku shaqeysanayo waqtigan la joogay aqoonta lagu shaqeysto ayaa waxa ay tahay takhasuska iyo filliga uu bulshada kaga aaday waxaan rabnaa marka inaan halkan maaragtay tirakoobyo kooban aan ku qaadno sida takhasusaadka adduunka ay bulshada iyo shakhsiyaadka u saameeyaan tusaale ahaan oo kale 60 ilaa 70 ardayda waxay bedelaan takhasuskooda 60 ilaa 70 boqolkiiba ardayda marka ay galaan takhasus waa ay bedelaan sababtoo ah ma helaan marka ay galayaan cid tala siisa marka ay dhex galaan takhasuskana waxa u soo baxaysa in waxa ay waqtiga badan gelinayeen oo ay ku indhamadoobaadeen uusan ahayn takhasus ay macno badan ka keenayaan 80% dadka Mareykanka ku nool waxay ku shaqeeyaan wax aanan ahayn takhasuskooda ayay ku shaqeeyaan oo macnaheedu tusaale ahaan kale qofkii hadii uu bartay xisaabaad waxa laga yaabaa inuu ku shaqeeyo maamul ama inuu ku shaqeeyo waxa weeye shaqooyin kala macallinimo iyo wixii la mid ah sidoo kale 48% waxaan tirkoobyada wadamada kale u soo qaadanayna waxa weeye problemska ama dhibaatooyinka wadanka jira waxay yihiin cilmi baaris lagama sameeyo waxyaabaha keenaya in aanu adeegsano xog ururin wadamo kale ah waxa keenaya ma jirto maantay xog ururin ku saabsan ardada Soomaalida ah ama ardada Soomaaliyeed waxyaabihii ay barteen iyo maaragtay meel kaydisa xataa waxa laga yaabaa jaamacad hadii loo tago oo ardaydu marka ay qalin jabinayaan ay ku sameeyaan waxa la yiraahdo thesis ama buugga qalin jabinta inay cilmi baaris ka sameeyaan laftirkeeda isla filligaas oo ah maxaa la kala doortaa marka taas waxay keenaysaa marka xogaha wadamada kale in isticmaalno marka 48% ardayda Sacuudiyaanka ah ama wadanka Sacuudiga u dhashay waxay galeen takhasusyo aysan jecelayn takhasusiyadaas ay galeen ma aysan jecelayn 25 kamidana 48daas weyn dabcayn takhasusiyadaas oo waxay ku galeen si muquuna ah waxyaabaha marka muhiimka waxa kamid ah oo qofka la rabo inuu ka duulo fikir ahaan in uu yiraahdo aniga aqoonyahan baan ahay waxaan rabaa qof wax bartay sidee ma marka bulshadeeda wax qof waxtar u noqon karaa uu su'aasha isweydiiyo sidee baan ku noqon karaa aqoonyahan waxtar weyn ku soo kordhiya bulshadiisa iyo naftiisa oo su'aal muhiim ah oo qofka maaragtay noloshiisa saldhig u ah waxyaabaha keena takhasusaadka in dadku ay filliyo kala duwan doortaan waxa kamid ah saaxiibada qofka wuxuu leeyahay saaxiibadiisa dhan baa waxa laga yaabaa inay galeen tusaale ahaan oo kale business administration ama BBA marka wuxuu leeyahay maadaama saaxiibada iyo dhan halka galaan anu mar rabo qolo aan garan inaan dhex fariisteen groupka ay saaxiibada meesha ay fadhiyaan baan galayaa saaxiibada sideeda banaan waxyaabaha muhiimka ay tahay in la ogaado waxa kamid ah saaxiibada tusaale ahaan oo kale qaarkood heer noloshaada ah ba saaxiibo ahaataan
tusaalahaan oo kale marka aad yarayd oo aad dugsiga dhiganaysay saaxiibadii aad lahayd waxa laga yaabaa badankood in aad ka soo tagtay ama deegaanka ay joogeen ama maaragtay magaaladii ay joogeen ama ayagu ay ka tageen aad kala nolol noqoteen dad is yaqaanay saaxiibo ahaydeen laakiin noloshooda inaad raacdid wax saxan ma marka saaxiibada waxa la yiraahdo waa wax isbedbedela nolosha laakiin ujeedka iyo filliga iyo takhasuska aad baranaysid waa wax adiga ku khusheeya waa wax adiga ayahaaga iyo mustaqbalkaaga nolosha inta ka dhiman saameyn ku leh inaad noqoto qof waxtar ah oo maaragtay bulshadiisa iyo naftiisa waxbara waxtara umadana waxtara aan noqotid waxa muhiim ah inaad taqaanid maaragtay takhasuskaaga marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo la rabo qofka horta inuu ka duulo noloshiisa waxa kamid ah inuu yaqaan wax la yiraahdo maya inaad tiraahdid waxyaabo badan markaad go'aan qaadanayso go'aanku waa shayga ugu muhiimsan waxa laga yaabaa hal go'aan oo khaldan oo aad qaadatid in uu noloshaada dhan dhinac khaldan u jiheeyo ama dhinac aad maaragtay dib u dhac kugu dhaco maaragtay u jeediyo marka waxa la yiri waxa jirta oraah Mareykan ah oo la yiraahdo Stephen Covey uu yiri inaad maya tiraahdo waa inay jirtaa ha ka weyn macnaha maya markaad waxyaabaha yararka aad tidhahaysid waxa jira waxyaabo ka muhiimsan oo ka xeel dheer oo noloshaada kaaga saameyn badan oo aad ha leedahay marka wuxuu ku leeyahay to say no is a bigger yes waxyaabo yarar oo badan inaad maya tiraahdid waxay ku jiidaa in aad waxyaabo badan oo waaweyn oo muhiim ah aad tiraahdid waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah qofku marka uu wax baranayo ama takhasus dooranayo ama shaqaynayo wax walba inuusan ku shaqayn wax la yiraahdo caadifad ama damqasho tusaale ahaan oo kale haddii waalidka ama qof ehelka ah ama qof saaxiibka ah ama walaalka ka weyn uu saameyn kugu leeyahay uu arkay nin dhakhtar ah oo isbitaal weyn leh oo lacag badan helaya oo laga yaabo xataa in waxbarashada asaga ka bixiyo uu ku dhaho walaalow caafimaadka baro adigana waxa laga yaabaa caafimaadka in aadan ku soo baxdeen ama aadan jeclayn inaad baratid marka walaalka ka weyn adigoo ixtiraamaya inaad qaadatid adoo ka xishoonaya oo sida uu rabo inaad maaragtay noqotid waxay keenaysaa noloshaada wixii aad ku soo bixi lahayd in aad ka weecatay hadda ka hor baa waxa dhacday baa la yiri oday baa wiil uu dhalay wuxuu ku yiri maandow filliga bar caafimaad buu yiri baro caafimaadkii uu bartay 6 sano meelahaas uu baranayay shahaadadii buu qaatay dadaal caafimaadku waa filliyada ugu badan oo dadaalka ugu badan la galiyo oo waxa laga yaabaa akhris aad far badan qofka inuu sameeyo marka wiilkaas aabihi isagoo xaq dhowraya uu filliga doortay laakiin ma jeclayn inuu caafimaadka barto isagoo aabihi yeelay warkiisa ayuu caafimaadkii dhameeyay maalintuu dhameeyay shahaadadii soo qaatay shahaadadii wixii intuu keenay aabihiis wuxuu yiri aabi caafimaad soo ma rabin inaan barto waa barto hadda waxaan rabo baranayo marka حتى waxa la yiraahdaa waalidka baarinimada u sameynaysid waa maxay baan isweydiiyay waalidka baarinimada u sameynaysid waxa weeye waxa asaga khuseeya salahaan oo kale hadii ay jirto magaalo dad cadow ku ah ay joogan oo waalidka ku yiraahdo magaaladaas aad waalidka waxa ma oga in dhibaato meesha kaaga imaanayso hadii aad did caasinimo ma sababtoo ah waxa kuugu dhacayo oo meesha kaaga dhacaya ayagu ku dhicmayaan iyo ku dhacayaan waa adiga marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye qofku marka uu wax dooranayo oo takhasus dooranayo inuu soo ku dooran damqasho iyo maaragtay baarinimo sameyn balse uu ku doorto wax uu asagu jecel yahay waa faahfaahin doonaa marka waxa muhiim ah qofku in uu marka takhasus uu dooranayo uu san ku dooran takhasuskaas damqasho iyo baarinimo iyo wixii la mid ah sababtoo ah waxa aad dooranayso waa wax adigu ku khuseeyo okay marka waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah su'aasha isweydiinna waxa waaye sidee baan ku doortaa takhasus aan waqtigayga iyo noloshayda aan u hurayo yani takhasus aan anigu ku tagayo sidee baan u doortaa waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah daayto waa sheegna waxaan nidhi waa go'aanka labaad ee ku soo xiga guurka qofka aad isguursanaysaan noloshaada oo dhan hadii Ilaahay isu keen calfo waa isla noolaanaysaa sida caadadu ahayd qof waxa aad baratidna waxay noqonayaan wax aad kula kora oo aad khabiir ku sii noqotid aad ku weynaatid kadibna
dee aad noqotid oday fildigaas ama gabar fildigaa looga dambeeyo. marka waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah waxa la yiri hadii aad baratid wax aad maaragtay waxbarashadaada aad ku dhistid si aad wax ugu heshid waxbarasho ma u baranaysid waxa u baranaysid inaad wax ku heshid u fiirsada halkaas hadii aad wax u baratid si aad wax ugu heshid waxaad u noolaanaysaa sida qof adoon ah ama nolol adoonsi ah ku noolaanaysaa sababtoo ah waxa aad baranaysid jacayl iyo xiisayn iyo ina khabiir ku noqoto uma baranaysid wax ku hel baad u baranaysaa marka waxa adoon u ahaanaysaa waxa aad baratay adoon u ahaanaysaa wax ku hel hadafkaagu ma aha waxbarasho muxuu yahay wax hel oraahda waxa yiri Dr. Tariq Suudan marka wuxuu yiri qofka barta baa la yiri waxa uu ku wanaagsan yahay wuxuu sameeyaa wax soo saar balse qofka barta waxa uu jecel yahay wuxuu ka sameeyaa hal abuur u fiirso qofka barta waxa uu ku wanaagsan yahay tusaale ahaan oo kale waxa laga yaabaa inaad sawir qaadid oo kale ku wanaagsan tahay sawir qaadida hadaa ku wanaagsan tahay waxa laga yaabaa sawir fiican qaadid laakiin hadii aad jeceshahay waxa laga yaabaa sawir caalami ah oo adduunka aan hore loo qaadin ama hal abuur culus ka sameeysan ninka hadda adduunka ugu taajirsan oo la yiraahdo Elon Musk waa nin ku tagay ama businessyada uu leeyahay waxa kamid ah shirkad la yiraahdo SpaceX waxay samaysaa nidaam dayax gacmeedka gaarsiiya samada isagoo isticmaalay awal waxa isticmaal jirtay shirkadda la yiraahdo NASA ama hay'adda NASA ee Mareykanka hay'adda NASA marka waxyaabihii qabsaday waxa kamid ah in xarunta adduunka ugu sareysa ama xarunta dayax gacmeedyada space-ka xarunta station-ka caalamiga ah ee dayax gacmeedyada ay ku fashilantay inay gaarsiiso dad maaragtay gaaro oo dadka astronaut-ka la yiraahdo oo maaragtay xidigaha ku maaragtay xagga samada cilmigaas ku tagay marka waxyaabaha ku guuleystay waxa kamid ah inuu sameeyay in isaga oo business oo private ah NASA waxa iska dawladda Mareykanka laakiin SpaceX waa shirkad private ah waxay ku guuleysatay in ay sameyso gantaal qaada dayax gacmeedku waxa uu fuulaa gantaal buusaa lagu xiraa kadibna qaybta kore weeye markuu kaco qaybta kore baa waxay gashaa space-ka meesha xarunta oo lagu talagalay maaragtay xarunta caalamiga ah astronaut-ka oo samada laga hago ama cilmi falga iyo samada laga fiiriyo marka wuxuu ku guuleystay in uu gantaal dib loo isticmaalo uu sameeyo awal waxa dhici jirtay gantaalada marka la rido inay hawada ku baaba'aan laakiin in dayax gacmeedkii la diro mar labaadna gantaalkii lagu qaadi jiray dib loo sameeyo marka taariikhdiisa laga sheekeeyo lacag aad u fara badan buu wuxuu galiyay iyo dadaal fara badan sidii ay arintaas uu ku guuleysan lahayd dad kale oo ganacsato ah oo sidiisoo kale hadda sida ninka soo xigo kale Jeff Bezos oo Amazon madaxda ka ah baa isagana kula tartamay laakiin ninkan waxa uu sameeyay wax ka horeeya oo maaragtay aan horey loo sameyn sidaa banaa marka qofku marka uu ka shaqeeyo wax uu jecel yahay uu passionate ku yahay wuxuu ka sameeyaa hal abuur dhibaatooyin fara badan oo bulshadeena haysata waxa ay leeyihiin aqoonyahan jecel dhibaatooyinka inay xal ka gaaraan tusaale ahaan oo kale anaga waxaan ku nool nahay magaalada Boosaaso dhibaatooyinka jira maxaa kamid ah kulayl Soomaa kulaylka ka jira waxa laga sameyn karaa intaas oo dariiqo oo kulaylka looga hortagi karo waxa kamid ah in la sameeyo nidaam koronto oo raqiis ah oo laga dhaliyo hawada laga dhaliyo qoraxda laga dhaliyo badda Soomaa laakiin maxaa la yahay dad hawsha iyada ah passionate ku ah oo jecel oo barta ka shaqeeya intaas oo sano waxa ka soo baxay kumanaan baa jaamacadaha ka soo baxay kumanaanka jaamacadaha nooga soo baxa hadii ay jir lahaayeen team hawsha iyada ah passionate ku ah oo jecel waxay xalin lahaayeen dhibaatada kulaylka ah ee magaaladeena ka jira marka halka waxaan ku soo celinaynaa qofku marka uu barto wax uu jecel yahay
oo uu aad u jecel yahay wuxuu ka sameeyaa horumar aad u horeeya buu ka sameeyaa takhasuska waxyaabaha la isweydiiyo waxa kamid ah marka qofku sidee buu u noqon karaa qof maaragtay laga wada faa'iideystay macnaheedu waxa weeye qof waxtarkiisa bulshada si waafi uga faa'iideysatay waxa la yiraahdaa waa qofka marka takhasuskiisa aqooneed uu yahay shaqada uu ka shaqeeyo tusaale ahaan oo kale caafimaad baad ku takhasustay caafimaadka aad ku takhasustay baa horta marka koowaad ku shaqaysaa waxa tahay dhakhtar shaqeeya tahay sidoo kale waxa tahay qof isxilqaan tusaale ahaan oo kale maalmaha isbuuciyo kale sabtida ilaa khamiista oo kale waa shaqaysaa waxa ka shaqaysaa xaruntaada caafimaadka ah waa ka shaqaysaa maalinta jimcada ah waxa laga yaabaa inaad ugu talagashay si isxilqaan inaad xaafadaha dadka danyarta ah oo kale aad adeeg caafimaad oo bilaash u samaysid inaad barnaamij TV ah talooyin caafimaad ka soo jeedisid waxa laga yaabaa inaad bixisid xisada caafimaad ah waxa laga yaabaa in aad qortid buugaag caafimaad ku saabsan marka waxa la yiraahdaa qofka waxa looga faa'iideysan karaa shakhsi macnaheedu aqoontiisa sida ugu xeelka dheer oo looga faa'iideysan karo waxa waaye marka qofku waxa uu bartay uu marka koowaad ku shaqeeyo marka kadibna uu waqtigiisa ziyaadada ah ama shaqooyinkiisa xilqaanka uu ka qabto isla filliga uu bartay marka khiyaar sharafta leh marka aad takhasus dooraneysaan waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah qofku inuu doorto wax uu jecel yahayna uu ku tago shaqo ahaan uu ka shaqeeyo isxilqaan ahaan uu ka shaqeeyo si aan u helno dad aqoon-yahan ah oo waxa ay barteen ku takhasusay khubaro ku ah ku shaqeeya si isxilqaan ahna ugu shaqeeya bulshada okay marka waxaan rabnaa halkaan inaan ku soo bandhigno saddex halbeeg oo qofka uu ku dooranayo takhasuskiisa maxay takhasuskiisa halbeega koowaad waxa waaye waxa la yiraahdo danayn ama jacayl qofku muxuu jecel yahay qofku waxa laga yaabaa wadamada hormaray isaga oo yar in uu dhigto ama iskoolkiisa ay yeelaan waxyaabo fara badan uu ku fahmi karo waxa uu jecel yahay tusaale ahaan oo kale waxa laga yaabaa ardaygaas ama ilmahaas inuu jecel yahay oo kale inuu diyaaradaha sameeyo ama diyaaradaha uu aad u jecel yahay marka isbitaalkii waxa yaala iskoolkii waxa yaala diyaaradihii iyo bombalayaal ah ayagoo waxbarasho ah ayagoo game ah ilmihii marka waxa la arkayaa in uu waxa jecel yahay uu aad ugu xiiseeyo maanta dhan uu ka fakaro uu ku warwareego uu xiiseynayo marka dad kulligan waxa jira waxyaabo aan jecelnahay qofku marka uu takhasuska dooranayo waxyaabaha muhiimka ah waxa kamid ah waxa uu daneeyo in uu takhasus aan u barto tusaale ahaan oo kale anigu computer science waan bartay oo ku shaqeeyay waqti badan baan ku shaqeynay ilaa haddana ku dhex jiraa waa nasiib wanaag ma helin tababarkan oo kale laakiin ilaahay amarkiis waa ku aaday waa xasuustaa maalintii ugu horeysay aan arko computer waxay ahayd 2003 meelahaas beel magaalo yar aan joogay markaa baa nin oday ah meel computer u yaalay ayadoo duhur inta soo dhunta baan fiirin jiray marka albaabka xogaas u riixin jiray wuxuu ilaahay wax ajiib ah oo yaab leh oo khatar ah buu ilaahay marka waxa dhacday waqti yar kadib 5 bilood 6 bilood kadib isla magaalada waxa la keenay iskool computerka lagu barto oo computeradii waa la keenay dadkii ugu horeeyay isdiiwaan galiyay baa marka qofku inuu ogaado waxa uu jecel yahay uu xiiseeyo uu sa ignore garayn xataa hadii uu waxa uu jecel yahay uu ka waayo magaalada uu joogo isku dayo in uu raadiyo meeshii uu ka heli karo sababtoo ah filligan baranaysid noloshaada wuxuu ku yeelanaysaa saameyn weyn waxaana muhiim ah qofku inuu ka fiirsado sababtoo ah waxa isaga baranaysid waxa ku noqonaysaa khabiir weyn anaga wadankeena waa wadan burburay oo waxa laga yaabaa inaad arag khubaro waaweyn tusaale ahaan oo kale ma arkaysid qof khabiir ah oo ku tagay chemistry-ga biology-ga ma arkaysid buugaag ka qoray waxa ku arkaysaa qof bachelor wata master wata
laga yaabo aad ba u yaryihiin dadka PhD da wata haday wataana waxa laga yaabaa waxyaabo kale inay ku shaqeeyaan marka taa waxay keenaysaa qofka inuusan arag dad uu hiigsado tusaale ahaan oo kale lama qabto seminaaro cilmiya oo ama ganacsiga ka hadlaya ama technology ka hadlaya ama siyaasadda ka hadlaya ama caafimaadka ka hadlaya waxyaabaha waxay keenayaan dad khubaro ah loo yeerayaa waxay ka sameynayaan sharaxaad talooyin bay ka soo jeedinayaan buugaag ay ka qoreen ba ku soo bandhigayaan buugaag ay soo akhriyeen ba waxay leeyihiin buugaagta hal la akhriyo waxay keenaysaa marka inay soo baxaan dad badan oo expert ah oo khubaro ah marka maadaama ay taa maqan tahay qof walba waxa la rabaa in uu dadaal geliyo in uu raadiyo waxa uu daneeyo waxa uu jecel yahay asagana waa is og yahay waxa laga yaabaa buug akhrinaysa oo kale ama video waa daawanaysa videogaas mowduuc uu ka hadlay mowduuca ana jecesha mowduucda aad jecesha ina akhrisid ama ina daawatid ama ina dhageysatid ama cid ka hadlaysa inaad la socotid waa fiiliyada xiga inay noqdaan waxyaabaha aad jeceshahay oo hadii waxbarasho ahaan fursad u heshid laga yaabo inaad ku talax tagi lahayd oo aad khabiir ku noqon lahayd marka qodobka ugu horeeya ee wax lagu doorto qofku takhasuska ku dooranay waa maxay waxa uu jecel yahay oo maaragtay naftiisa soo jiidato in uu doorto tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaabaa gabdhuhu waa laga yaabaa inay cunno kariska ay jecel yihiin haddii aad tahay wiil oo kale oo aad jeceshahay cunno kariska oo maanta dhan cunno inaad samaysay aliftid ha ka xishooni sababtoo ah waa fildi weyn oo business ah aqoon ah oo cilmiyo badan leh buugaag leh oo caalami ah waxaa laga yaabaa dadka adduunka ugu khatarsan oo kale social media waa ku aragteen nin Turkish oo la yiraahdo Nusrat oo hilibka sameeya oo cusbada ku sayrayso ma arag waa nin caalami oo milyaneer oo maaragtay soo baxay ninkaas waxa laga yaabaa waqti badan inuu businesska ku jiray oo ka shaqeynayay social media technology-ga inay u sahashay inuu cilmigiisii uu ganacsi iyo horumar weyn ka sameeyo marka inuu qofku ka xishoon filliga uu baranayo hadii waxa aad jeceshahay ina u bareertid caafimaad ahaya محلي تكنولوجي هايا ماركة public administration هايا علم الفلك هايا وحا تعيشها واباشنت كوكتها ان آذن ignore قرين او آذن انها كلابا ددال اجلسي waxyaabaha ku sahlay waxa kamid ah in ogaatid xataa waxa laga yaabaa dadka badankood inay ku socdaan talooyin dad soo siiyaan dhahan oo kale qof ka weyn oo saameyn ku leh inuu ku yiri filliga baro qofkaas qof walba wuxuu ku taliyaa hadii galabtii weydiisaan ay tiraahdo maxaa barata aniga talahaan weydiisaan kulli waxaan dhila computer barta waa ku sababta computerka ana jecel qofku marka waxa uu jecel yahay waa inuu raadiyo uu dadaal badan geliyo uu input badan geliyo waqti baa ku qaadato waqtiga hadda la joogo waxa nasiib wanaaga maanta waxa haysanaa mucjisada adduunka ugu weyn technology telefoon baa haysanaa telefoonkaas umalame insaanka intuu jiray heerka uu gaaray casri ka sareeya inuu jiro casriga aan maanta joogno cilmiga adduunka ugu dambeeyay khubarada adduunka ugu dambeysay telefoonkan ku jira dadka badankood waxa laga yaabaa inay ku isticmaalaan internetka social media waa la isticmaalaa laakiin social media internetka waxay ka tahay dhibic badweyn taala sababtoo ah waxa la yiraahdaa cilmiga adduunka maanta yaal 50 sano ka hor waxa la dhihi jiray cilmiga adduunka yaal in la eg baa ku darsami jirta 50 kasta oo sano cilmiga adduunka yaal uu la wajibaarmi jiray laakiin hadda waxa la sheegaa in 18 saac oo kasta cilmiga adduunka yaal uu la wajibaarmo waayo intaas oo waxa tartan ah adduunka ka socda dawladaha adduunka maanta waxay ku kala adag yihiin ku kala xoog badan yihiin waa maxay waa cilmi bay ku kala xoog badan yihiin ku kala saameyn badan yihiin waxa laga yaabaa wadan dhan in maaragtay loo weeraro ama adduunka uu ku haysto filli kamid ah cilmiga marka in aynu input gelino oo dadaal gelino in aan raadino waxa aan jecelnahay hadii aan aqoon qofkii yaqaan waxa uu jecel yahay waa qof nasiib badan qofkaas waxa waajib ku ah in uu waxa uu jecel yahay uu input geliyo dadaalo akhriyo wax ka akhriyo waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah talahaan qofka inuu barto
luqadda Englishka waayo luqadda Englishka waxa ku qoran cilmiga adduunka 80% baa la yiraahdaa cilmiga adduunka yaal 80% wuxuu ku qoran yahay waa maxay English language maxaa wax ku akhrisaa hadii aadan luqadda Englishka aqoon qaab badan baa jira qofku inuu isbaraa jiro waagi hore annaga waxyaabaha maaragtay si wanaaga waxa ka mid ah xilligii aan joognay social media ma jirin barafadiya jiray ayaga social media noo ahaa marka waxa dhici jirtay in barafadiyada la tago practice wax la yiraahdo ama chat la wada sheekaysi lagu tartamo erayo la barto kadibna la dhismo marka hadeer waxyaabaha sahal ee qofka waxa ka mid ah inuu luqadda Englishka isbaro online ka koorsooyin baa ku jira luqadda Englishka oo Soomaali ah baa ku jira oo lagu baran karo waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah marka qofkii in uu furaha cilmiga yaqaan oo ah luqadda Englishka aad bay muhiim u tahay qodobkaas ugu horeeya waxa waaye wax lagu doorto koow danaynta qof walba waxa uu daneeyo waa in uu cir iyo dhul ilaahumay 2-3 sano hadii rabtaa kugu qaadato inta 4 sano 5 sano ku bixin lahayd wax noloshaada aadan jeclayn waxa la qaatay inaa horta soo saartid oo waqti gelisid aad tiraahdo aniga waxa ay qorshaysan 3 bilood 4 bilood bal horta inaan fahmo waxa aniga jeclahay maxaan passionate ku ah maxaan xiiseeyaa taa waxay ku caawinaysaa oo ku sahlaysaa in aad lumin oo fildigii aad naftaada iyo bulshadaada ku anfici lahayd wax hal abuurka aad ka sameyn lahayd maaragtay aadan ka lumin inagu hadda waa joognaa magaalada Boosaaso waxa laga yaabaa 10 sano 15 sano ka hor ganacsiyada ka furnaa kulli inay sidooda uga furan yihiin ama hal nooc oo ganacsi ama laba ganacsi ku soo kordheen waxa laga yaabaa dadkeenu hadda hadii ay tagaan Dubai oo kale hadii Nairobi tagaan hadii Addis Ababa tagaan inay ka soo adeegtaan maxaa keenaya hal abuur ma jiro qof walba hadda caawa hadii lacag naloo dhiibo qofku wuxuu leeyahay suuqa maxaa ka socda alaabta suuqa ka socota mashkor baa socota mashqaal baa socda bagaash baa socda waxa inuu soo gado uu hal abuur ku fakirin laakiin waxa jirta oo lagu kala tagay adduunka waa maxay hal abuur marka waxaan ku celcelinaynaa qodobkaas saddexda qodob oo wax lagu doorto qofka takhasuskiisa ku doorto ko waa maxay waxa uu jecel yahay qodobkaas waxaan filayaa si fiican baad u fahanteen waxa ku xiga waxa la yiraahdo fursad qodobka labaad waa maxay fursad qodobka filliga aad dooranaysid waxa muhiim ah inaad ku dooratid fursadda uu leeyahay hadii cilmi laga guuray salahaan oo kale waxyaabaha adduunka laga guuray waxa kamid ah in tab wax lagu qoro in maaragtay fax wax lagu diro technology-ga ay ku shaqeyn jirtay waagaas hadii aad tiraahdo alaabta salahaan kale telefoonada waagi hore waxa la isticmaali jiray 2G 1G baa la isticmaali jiray hadda 4G 5G baa loo socdaa hadda tiraahdo telecommunication baan baranaya kadibna waxaan ka baranaya 2G waa cilmi laga tagay waxyaabaha muhiimka waxa way qofka inuu iswaafajiyo waxa uu baranayo marka waad inuu jecel yahay kadibna wixii inay leeyihiin fursadaas ama ha ahaato fursad mustaqbaliyan ah oo cilmiga inuu korayo ah ama fursad asaga laftirkiisa uu ku soo bixi karo filiyada qaybtooda qofka asaga wuxuu abuuri karaa fursad salahaan oo kale nin dhalinyaro ah waxa la yiri wuxuu bartay shareecada waa ognahay waa fili maaragtay diinta islaamka qiimo weyn ku leh laakiin aad u badan dadka barta Soomaaliya dad badan baa shareecada kala filiyada ugu badan oo hadda wadanka laga barto weeyii ardayga shareecada galaya wuxuu ardayda kale ee shareecada barta uga horeyn karaa inta kutub uu akhriyo inta fan uu ka akhriyo shareecada fiqiga ka akhriyo maaragtay uu ka akhriyo cilmi xadiiska ka akhriyo quraanka ka akhriyo inta kitaab uu akhriyo hadii marka uu ka aqoon badan yahay ardayda kale oo ka akhris badan yahay ardayda kale ee maaragtay barata shareecada uu ka fursad fiican yahay asad hadii aad computer baratay oo ama computerka aad jeceshahay inaad baratid waa inaad ku tala gashaa in aad computerka filligiisa aad expert ku noqotid aad fahamku ka haysatid sidoo uu kala baxo cilmiyadu uu kala baxo ama ha ahaato maaragtay application development ama ha ahaato networking ha ahaato ama designing ha ahaato ama multimedia ha ahaato inuu qofkii ku takhasuso oo cilmigii uu faham xeel dheer ka haysto fursadaas marka waxay keenaysaa qofkii in uu asaguna cilmigaas uu ka maaragtay ka soo baxo oo noqdo qof fursadaas
ku horeeya oo dadka kaga horeeya wuxuuna uga horeyn karaa in uu dadaal badan geliyo marka hore waxaan u neer saddex wax baa lagu doortaa qofka uu takhasuskiisa ku doortaa koow waa maxay fursadda danaynta waxa ku xiga waa maxay fursadda waa ku xigta marka waxa ku xiga waxa la yiraahdo awoodda tusaale ahaan oo kale awood waa maxay qofka fil baranay tusaale ahaan oo kale hadaa rabtid inaad caafimaadka baratid caafimaadku wuxuu u baahan yahay awood maskaxeed oo xifdin dhakhtar marka aad rabtid inaad noqotid waa inaad xifdisan tahay daawooyinka xanuunada acraadooda ama waxyaabaha maaragtay xanuunka acraad wax la yiraahdo jirta Soomaali waxa lagu yiraahdaa astaamaha xanuunka waxyaabo leeyahay qofkii astaamihi xanuunka ka muuqanaya marka hadii aad caafimaad baranaysid waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah in capacity-gaaga xifdiga ah uu aad u sareeyo taa waxay ku sahlaysaa inaad noqotid qof ku tagay fildigaas oo markooda uu jeclaa caafimaadkii fursad weyn buu ka sameyn karaa qofka awood ahaanna awood buu leeyahay qofka tusaale ahaan oo kale rabo inuu physics ka barto oo cilmiga fiisiyaha ku tago waxyaabaha looga baahan yahay ama engineering-ka ama computer-ka waxyaabaha looga baahan yahay waxa ka mid ah inuu xisaabta uu expert ku yahay xisaabta uu si fiican u yaqaan xisaabta oo si fiican u taqaanid waxay ku sahlaysaa in aad fildigaas aad micno badan ka keentid aad ku takhasustid aad ku xeel dheeraatid marka awooddaas iyada ah waxay ku sahlaysaa in maaragtay ay ku fududaato fildiga isaga ah aad baranaysid jadwalka halka waxa ku qoran waa jadwal su'aalo ah hadda waxa ku jira 3 kuliyadood baa ku jira waxa ku qoran takhasuskii baa ku qoran su'aal ahaan oo kale takhasusyada waxay kala yihiin computer shareeco business administration halkaana waxa ku qoran godadkii oo ah danayntii aan hore uga hadalnay fursadii awoodii totalkii iyo shalayto wax la yiraahdo aan sharaxi doono marka hadii aan rabno inaan is ogaano saddexda kuliyadood tusaale weeye idinku u qaadan qof walba waxa la shaxdaas oo kale intuu qorto kadibna uu ku buuxiyo filiyada uu jecel yahay tusaale ahaan oo kale qof laga yaabaa inay wax isaga khaldan yihiin uu jecel yahay tusaale ahaan oo kale inuu barto business administration public administration economic saddexda fiildiyo kale uu jecel yahay oo maaragtay cilmiga ah haddana ma yaqaan sidoo ku kala saari lahaa marka wuxuu sameeyay sidaan oo kale buu shaxda u qorayaa oo saddexda fiildi buu ku qorayaa wuxuu siinayaa darajada ugu hooseysa waa 1 darajada ugu sareysana waa 10 tusaale ahaan oo kale aniga computer ana tusaale isu isticmaalaya computer-kan jeclahay danaynteeda waxaan ku qorayaa 10 danaynteedu waa sareysaa shareecada oo kale waa jeclahay waxaan ku qorayaa 8 oo kale business administration ayada waxaan ku qorayaa 7 okay marka halkaas waxay kala yihiin 10 8 iyo 7 ay kala yihiin waxa ku xiga fursadda computer-ka waxaan ku qoray tusaale ahaan oo kale 9 baan ku qoray shareecada waxaan ku qoray 6 baan ku qoray business administration oo kale waxaan ku qoray tusaale ahaan oo kale waxaan ku qoray 8 oo kale aan ku qoray marka sidaas oo kale isugu daraysaa filli walba waxa siinaysaa kaad fursad ahaan mar walba waxa ku fakaraysaa sidaan u fakaraysaa marka aad ka fakarayso computer science danaynta buuxinaysaa shareecada buuxinaysaa administration-ka darajada ugu sareysa waxa siinaysaa meesha ugu jecesha tusaale ahaan kale 10 baa ugu sareysa 10 waxa way aad baa u jecelahay ama aad baa u danaynaya halna danaynteedu waa hooseysaa sidaas oo kale waa shareecada u buuxinaysaa sidaas oo kale waxa u buuxinaysaa business administration sidoo kale fursadiina sidaas oo kale u buuxinaysaa fursadii hore baan soo sharaxnay iyo danaynta iyo awoodda sidoo kale mid walba sidaas aad u buuxinaysaa hadda waxa sameynaysaa waa isku daraysaa danaynta oo lagu daray fursadda oo lagu daray awoodda hadii aan computer-ka wada 10 siiyo halka maxaa galay wadarta 30 baa galaysa marka waxa sameynaysaa qaybta shalaytada ah waxa weeye marka aad qortid iyadana waa isku daraysaa waxa sameynaysaa su'aal ahaan oo kale computer-ka koowaad waxaan siiyay danaynta waxaan siiyay 10 baad waxa ka dhiganaysaa halbeeg marka waxa leedahay 10 ka jar
وإبر نبيع بقى هلكا كو قريسا إبر بقى كو سيرة كو قريسا طبعا شريعة waxaan siiyay tusaale ahaan oo kale sideed baan siiyay toban sideed ka jar waa maxay waa labo waxa ku daraysaa eberti business administration waxaan siiyay toddoba toban ka jar waa maxay saddex shan bay noqonaysaa marka waa eber lagu daray shan lagu daray maaha eber lagu daray labo lagu daray ha may ha eber lagu daray labo lagu daray saddex shan bay noqonaysaa sidaas oo kale kullu buuxinaysaa shalaytadu waxa weeye markastoo tirada shalaytada ah ay yar tahay ee filli leeyahay waxa badanaya jaaniska ah inuu filligaas yahay filliga aad ka shalaayi doonin markastoo tirada shalaytadu badan tahayna waxa weeye waa filli aad ka shalaayi doonto macnaheedu inta waqti gadilaysid oo dadaal galisid kadibna laga yaabo inaadan maaragtay wax badan ka keenin marka jaantuskan waxa la rabaa qof walba inuu qorto takhasuskii danayntii fursadii wadartii iyo shalaytadii kadibna kulliyadaha asagu u jecel yahay uu sida ugu buuxiyo markuu ku buuxiyo uu maaragtay dhibcihiisiyo filliga uu jecel yahay ugu jecel yahay wuxuu siinayaa 10 ku xoogaa jecel yahay waa ka dhimaya hadba isaga qiimeynta sameeynaya marka jadwalka buuxinaysa waxa muhiim ah inaad halka ku buuxin waqti aad degan tahay jimcada oo kale inaad waqti qaadatid buuxisid sababtoo ah waxa muhiim ah qofku marka uu noloshiisa iyo cilmiga uu baranayo uu maaragtay go'aan ka qaadanayo wuxuu u baahan yahay maskax degan oo clear ah inuu ku qaato waayo saa hore u sheegnay go'aanka waxbarashada ama takhasusku waa go'aan noloshaada meelayn kara inaad noqoto qof meel ka soo baxay oo bulshada kaalin ooga aaday maaragtay noqon kara dib walba oo maanta ama dalka jirta ama bulshada haysata waxa sababteeda leh cid booska buuxisa banaan hadii maanta magaalada Boosaaso oo kale uusan joogin dhakhtar wadnaha khabiir ku ah maxaa keenay ardayda badan oo caafimaadka bartay soo khasaaro ma waa khasaaro waxa laga yaabaa qaybtood inay heli karaan in ilaa wadamada Yurub oo kale caafimaad ay ku soo bartaan laakiin ardayga waxa laga yaabaa in caafimaadka loo geeyay muquuna ah oo sida ku bartay خصمنا ما حتى إنه قف كل ذي هاي هذا واحد شري وجعلان لها إن إذا الله هذا الشيء هتين معقول تهير أن صاحبنا هاي وجرة وكمبيوتر كأد خبير وقلنا قضي هذا راح برشوق يوجوجا وضن ك صوت كوريا يوجوجا وداتا أناليست كمبيوتر ساينس في اللي كم وداتا أناليست اللي را في اللي هذا دون بوع 10 سنة وما ركتي حسها بدن أبا وقالسن أيوب برتا حتى markii aan tababarka meel dhawada wada hadlayno wuxuu yiri ardayda ama dad ka soo qayb galaya waa jeclaan lahaa inaan la hadlo ama kelmad u jeediyo marka ninka dhalinyarada ah qarbu joogay wuxuu sameeyay system yar oo ay sameeyeen systemkii waxay u geeyeen magaalada bay ku soo bandhigeen kadibna shirkadda Golis baa ka heshay fikradii kadibna shirkadda Golis baa shaqaaleysiisay si internship wax la yiraahdo jiro qofkii inuu shirkadda asagoo arday ah oo jaamacadda dhiganayo bilow ah inuu shirkadda yimaado oo ku dhex shaqeeyo sababta waa qof hal abuur leh kadibna computerkii uu bartay ilaa uu ka dhameeyay intaasna uu ku dhex shaqeynay filligu baranayay dhanka kale wuxuu ka waday inuu apply gareeyo scholarship caalamiya oo caalamka adduunka maanta waxyaabaha jira waxa kamid ah technology-ga waxay sahashay in scholarship meel walba laga helo wadamada adduunka jaamacadaha adduunka dhan baa laga helaa qofkii hadii uu raadiyana waa helaa meel walba Afrika laga helaa Yurub baa laga helaa Asia laga helaa Turkiga laga helaa waqti dad badan inay sanad walba aadaan marka waxyaabihii marka hadda data analysis bartay master ka diyaariya wax badan buu maaragtay deganiyay asaga marka aabihiisii hooyadiis lacag kuma aysan bixin waxbarashadii iyo line-kii iyo scholarship-kii asaga dhameystay sidaas oo ku tagay oo hadda wadankaas wadamada adduunka technology ugu horeeyay wax ka bartaa marka hadii qofku uu dadaal geliyo takhasuska uu baranayo حتى هدوس الدقال أهان أودين وجو أود ويالنا إن ودال جري شدي وكهل لها وقت هذا اللي جوا وفضل والله هلوا محي دقالة هذه فكرة دقالة أو كهل لها التي بعدين دقاله هو كوسه لنا نيا تذكر ما لذا نروح الناس كحرا
waxa laga yaabaa hadii waalidka uusan dhaqaale ahaan ku support gareyn karin inaad ka heshid qaraabada iyo ehelka inaad support ka heshid waxa laga yaabaa dawladda inaad ka heshid maalin walba qofka hal abuur sameeya ama dawladda dhexe ama maamul goboleedyadu madaxdu way soo dhaweysaa kulan baa loo qabtaa waxa laga yaabaa in madaxdu inay ballanqaad u sameeyso oo qofkaas fursad ama waxbarasho la raadiyo ama dadaal la raadiyo qofka marka maanta casri aad ma aragtay qofku uu nasiib badan yahay baa la joogaa laakiin waxa muhiim ah qofku inuu dadaal galiyo takhasusku uu dooranayo problem walba oo haysta waxa la laayahay qof buuxiye oo ku maaragtay hawshaas waxa la yiraahdo haduu yahay caafimaad haduu yahay maxaa la jiray maalin waxa la sheegay in dhalinyaro dhakhtar ah oo magaalada jooga oo xanuunka sokorta la yiraahdo khabiir ku ah ninka marka waa ardayda Suudaan ka timid magaalada waxa laga yaabaa kaligiis inuu boosaaso joogo dadka magaalada ninkaas marka qiyaas dadka badana xanuunka qaba macaamiishiisa waa dhaqaale ahaanna waa ka helay dhaqaale fiican buu ka helayaa isagana waxa waaye qof bulshadii kaalin uga aadan oo kaalintaas bulshadaas ka xaliyay laakiin hadii uu xanuunkaas uusan jirin qof khabiir ku ah oo bartay oo ku takhasusay maxaa dhici lahaa in loo aado wadanka dibadiisa Soomaha marka waxa loo baahan yahay in aan la sahlanin qofka takhasuska uu dooranayo uu ka fakaro uu dadaal badan galiyo maxaa la jiray waqti badan galiyo tashi badan galiyo ilaahay baryo bahasha u fariisto sababtoo ah wixii aad baratid oo aad takhasus ka dhigatid waa wax bari naftaada aad ka anfacaysid bulshadaada ka anfacaysid hadhowtiina lagaaga dambaynayo waxyaabaha marka muhiimka ah bay ka mid yihiin waxyaabaha kale oo sifooyinka ah oo lagu doorto takhasuska waxa ka mid ah in qofku takhasuskiisa marka uu dooranayo uu ka fiiriyo markii aan soo hadalnay waxaan soo sheegnay danaynta waxaan ka soo sheegnay fursadda waxaan soo sheegnay awoodda waxa kale ku xiga faafidda waxa la yiraahdo filliga aad dooranaysid wax intee la igfaafayo waa su'aal ahaan oo kale hadii aad baratay computerka oo kale ama aad baratay caafimaadka waxa aad baratay faafidiisa intee bulshada ka faa'iideysan kartaa in uu qofkii ku xisaabtamo hadii wax laga guurayo ama dad yar ama customer yar ama bulshada yar ay ku xirnaanayso aad baratid waa wax maaragtay laga fiican yahay oo anaga hadda baahiyo badan baa jira oo bulshada ka banaan waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah qofkii in uu qodobkaas faafidana xisaabta ku darsado faafida waxa aad baranaysid wax intee la eg bulshada intee la eg ku xirnaanayso waa su'aal aad muhiim ah waxyaabaha kale oo muhiimka qofku inuu tixgeliyo ay ka mid tahay waxa ka mid ah waxa aad baranaysid ma yihiin wax sii jiray wax mustaqbal leh salahan oo kale aniga computerkan bartay wax laga yaabo salaasha badan inaan soo qaato casriga maanta la joogo waxa la marayaa in diyaaradaha macaa laga hago computer hadda diyaaradaha dagaalka baa laga isticmaalaa droneska baa waxa laga hagaa computer laga hagaa laakiin waxa laga yaabaa mar dhow in la gaaro diyaaradaha ganacsiga oo shacabka qaada in ay noqdaan diyaarad saas oo kale elektrooniga hadda waa aragteen baabuurta hadda isla ninkii odaga hadaad ka sheekeyneen Elon Musk baabuur wuxuu sameeyay self driving ah oo asagu iswadaya marka waxyaabaha oo muhiimka ah qof markuu wax dooranayo waxa ka mid ah in uu isweydiyo waxaan aan baranayo ma yihiin wax sii jiraya oo mustaqbal leh takhasuska aan baranayo ma yahay takhasus koraya oo ballaaranaya oo kordhaya filli walba maanta waxyaabaha cilmiyada hadda adduunka wax walba soo hosganaya waxa ka mid ah technology oo wadanka hadda waxa la yiraahdaa Japan hadii aad PhD wadatid oo aadan computerka wax ka aqoon sidii qof jaahil ah tahay sababtoo ah caafimaadka computerka uu soo galay cimiladii uu soo galay ganacsiga uu soo galay meel walba soo galay oo hadda waxa la yiraahdaa adduunka wuxuu socdaa artificial intelligence dadka qaybtooda waxa lagu qiyaasaa 2030 adduunka waxa la yiraahdaa waxa ka tarin doona artificial intelligence dagaalada hadda adduunka socda dagaalada hadda Ethiopia ka socda kuwa Ukraine ka socday Syria kuwa ka socda waxyaabaha lagu dagaalamayo waa maxay ninkii diyaarad drone oo khatar ah haysta ninkii birqdaar haysta ninkii diyaaradaha Mareykanka oo kala haysta maaragtay oo smart drones ka ah qofkii haysta robots waa kula dagaalamaya waxyaabaha marka muhiimka waxa ka mid ah qofku inuu fiiriyo si jirtaan
waxyaabaha kale oo muhiimka ah qofku marka uu takhasuska dooranayo waxa ka mid ah xeel dheerida saamaynta waa maxay marka wax ka shaqaynaysid ma yihiin wax aan wax sii jiraya tusaale ahaan oo kale barnaamij waa samaynaysaa waxa aad ka shaqaynaysid ma yihiin wax saamayn badan oo xeel dheer mise waxay yihiin wax waqti kooban tusaale ahaan oo kale ganacsiyada qaybtood ama filiyada qaybtooda xilli kooban bay shaqeeyaan waxa aad ka shaqaynaysaa ama filiga aad baranaysid ma yihiin wax sii jiri doona isla miciyaarkan ama halbeegan hadda aan sharaxayno waxyaabaha lagu dhiso waxa ka mid ah ganacsiga oo kale haddii aad ganacsi furaysid oo ganacsiga kaliya uu shaqeeyo xagaaga oo kale de wax sii jiray ma seasonal afarta season ma shaqeeyo laba season ama laba xilli uu shaqeeyaa si afarta xilli oo sanadka labana waxa way offline baad marka waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah qofkii in uu marka wax dooranayo takhasuskiisa uu fiiriyo takhasuska ma yahay takhasus xeel dheer oo maaragtay loo baahan yahay oo koraya oo aan laga maarmayn oo macno badan waxyaabaha kale oo muhiimka waxa ka mid ah in uu ku qiimeeyo waxa ka soo galaya qofka dakhliga billaha ah ma aha dakhliga sanadlaha ah qofkan waxa aad baranaysid ma yihiin wax dakhli leh oo suuq leh oo waxyaabaha ugu muhiimsan waxyaabaha hore aan ka soo sheekeynay kuwaana tixgelintooda ayay leeyihiin qofkii marka haddii uu barto wax aan waxba ka soo galayn hadda maantay boosaaso kale haddii aad baratid muusikada soo baratid oo kale oo aad meel inta furatid muusiga lagu garaaco waxa laga yaabaa cidna ku imaano ninkaas oo wareeray lagula yaabaa laga yaabaa waxa laga yaabaa wadamada hormaray inta Yurub tagtid nin baa la yiri meelahaas jaacad baa loo diray wuxuu bartay muusik ninkaas waxa laga yaabaa inuu dalkii ka shaqeynayo laakiin wadamadaas waxa laga yaabaa in ama qaybaha fanaaniinta qaybtooda inay shaqo siiyaan marka waxa muhiimka waxa waaye qof markuu wax dooranayo inay yihiin wax dakhli leh oo standard oo sharciya oo ixtiraam leh oo nadiif leh oo xeel dheer inay ahaadaan waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah qofku waxa uu baranayo in uu hanti ka samaysan kara isaga uu leeyahay tusaale ahaan oo kale waxyaabaha qofku uu yeelan karo had waxbarashada oo kale haddii aad cilmi tababar ka samaysid cilmiga tababarka aad ka samaysid waxa leedahay maaha tababarka tusaale ahaan oo kale class tababar qaadateen galabta markaa baxdaan wixii aad qaadateen anigana marihi waa aqoon dad sheekaystay oo kale baana wax muhiim ah in kaga sheekayso maaha laakiin haddii aan isla mawduucan buug ka qoro buuggaasi iskale aniga iskale magacayga aan ku qorayo waxaan leeyahay buuggaas anaa qoray marka waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah qofku markuu takhasus dooranayo in uu tixgelinta ku darsado waxaan ma yihiin wax lahaanshiyo qofka inuu asagu ownership ka dareemayo inuu maaragtay ku jiraan marka shanta qodob oo kale iyagana muhiimad weyn bay leeyihiin oo ku celinaynaa waxa aad baranaysid ma yihiin wax faafaya oo koraya oo maaragtay dad badan ay ku xiran yihiin ma yihiin wax sii jiraya oo mustaqbal leh ma yihiin wax saameyn leh oo saameynteedu xeel dheer tahay ma yihiin wax dakhli bilaa ah dakhliyada qaybtood sanad bay soo dhacaan sanadku wax lagu xisaabtan kara ma adigu filiga baratay waxa rabtaa inaad noloshaada ka kabtid soo maaha inay yihiin wax dakhli leh oo koraya oo wax ka soo galaya inuu noqdo wax aan leedahay waxa jirta oraah English ah oo leh macnaheedu waxa la yiraahdaa boqolkiiba hal oo lahaanshiyo ah ayaa waxay ka fiican tahay boqolkiiba boqol oo maamulaad tusaale ahaan oo kale shirkadda hadaa madax ka tahay oo madaxa ugu sareeya aad tahay waxa ka saameyn badan qofka shareholder-ka ah oo 1% iska leh sababtoo ah qofka shareholder-ka leh ama waxa iska leh lahaanshiyo ku leeyahay meeshan laakiin adiga waxa laga yaabaa maalin in lagu yiraahdo waa fasaxan tahay ama waa ka maaran marka waxa muhiim ah in qofku marka uu takhasus dooranayo waxyaabo uu lahaanshiyo oo kordhayaan in uu takhasuskiisa ku daro hatta filligan qodobadan waxa laga yaabaa inaysan filligaaga toos u saameynin laakiin filligaaga waxyaabaha ka dhalan doona su'aal ahaan oo kale hadii aad caafimaad baratay caafimaadka waxyaabaha aad ka sameyn doontid in aad ka samaysid qodobada aan raacdin su'aal ahaan oo kale caafimaad baa baratay caafimaadka aad baratay sidee baan
uga dhigi karaa uga samayn karaa wax faafa sidee baa uga samayn karaa wax sii jira sidee baa uga samayn karaa wax hel saameyntooda xeel dheer yihiin sidee baa uga samayn karaa dakhli bilaa sidee baa uga samayn karaa wax aan leeyahay iyadana aad bay muhiim u yihiin waxyaabaha muhiimka ah oo takhasuska qofka uu dooranayo waxa kamid ah mashaariicda nolosha bulshadu waxay bulsho ku tahay in qof walba meel uga aadan yahay marka qolo walba meel bay ku aadan tahay bulshada yacan hada aragtid dad waxa haysata dad maaragtay dhibaatooyinka haysata oo dayaca haysta waxa way cid ka shaqeysa baa la laayahay marka waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah mashaariicda waaweyn ee qofka nolosha ah oo la rabo inuu sameeyo waxa kamid ah filiyada abaranaysid inaad buugaag ka qortid buugaag inaad ka qortid aad bay muhiim u yihiin buugaagta akhrinayno aan faa'iideysanayno oo aan cilmiga ka kororsanayno dad baa qoray dad baa ku takhasusay looga dambeeyaa hadhowtiina bulshadii waxay ka sameeyeen cilmi ahaan qoraal ooga dhigay waxa kamid ah mashaariicda aragtid inaad ka samaysid business hadii aad caafimaad ka baratay waxa la rabaa inaad ku fikirtid inaad isbitaal weyn furtid magaalada hadda isbitaaladu waa jiraan laakiin isku wax bay qabtaan waxa loo baahan yahay qof hadda uu nala joogo caafimaadka raba inuu barto inuu yiraahdo aniga waxaan baranayaa caafimaadka gaar ahaan kaliyaha oo kale waan baranayaa dhigi karaa beerkan baranay wadnahan baranaya lafahan baranaya isbitaal filligaas ku takhasusay marka aad fiirisid ahamiyada ay leedahay qofka takhasuska uu dooranayo ilaa kama tusaalahaan oo kale hadii dad badan oo waxa jira takhasus bay baranayaan markay bartaan jaamacaddu dhamaynaya kadib waqti isku laabaya soo fariisanaya meelahaas uu hadda oday u tagay adeerow maalin baan inta Facebook ama Twitter baa waxa ku arkay nin dhalinyaro shahaado wato odayga saa kuleetiga u hayo hadba shirkad iyo hay'ad kula wareegay wuxuu leeyahay wiilka maandooyo shaqadiisii ma garan qofku hadii uu fil uu jecel yahay uu barto ma suga cidna sababtoo ah hada caafimaad baratay marka ugu yartahay cilmiga aad baratay baa macallin ku noqonaysa hadhowtii macallimimadii baa laga yaabaa xoogaa inta isku aadi inaa farmashiyeer furatid farmashiga 2-3 sano kadib isbitaal yar furatid dhinacii kale waxa ku socda cilmigii waxa laga yaabaa dhaqaale inaad ka heshid takhasus soo raadsatid aad ku dhex kortid wixii maxaa keenay waa wax aad jecesho aadan ka maarmeyn maanta oo dhan buugaag baa ku taal hadda yarka dhakhtar caafimaadka bartay oo xanuunka sokorta magaalada ka shaqeeya farmashigiisa marka aad tagtid waxa u yaala buugaag baa u yaala waxyaabaha qaybta markuu garan waayo buugtu la soo baxaa buugaagta uu haystaa waana qofka kaliya oo wax bartay oo filliga uu bartay buugaagtiisa aan ku arkay xaruntiisa inuu u taabo marka waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah qofkii in wax uu baranayo in uu ka fakaro inuu maaragtay ka sameeyo business oo buugaag qor waxyaabaha kale muhiimka waxa ka mid ah in aad dadka maaragtay wax ka bartid tusaalahaan oo kale dhaqaatiirta deegaanka Soomaaliya waxa kamid ah dhaqaatiir waaweyn ama lafaha ah ama xanuunada dumarka ah kulligood ama xanuunada maxaa la jira kala xanuunada kala duwan dhakhtarka khabiirka expertiga ah ardayda imaanaysa jaamacadaha ka soo baxaysa way la shaqeynayaan markay la shaqeynayaan maxaa u socda tababar baa u socda sidoo wax u qalayo sidoo wax u daaweynayo sidoo wax u koray maaragtay xarunka uu maaragtay u dabagalayo tababar baa u socda waxyaabaha kale muhiimka waxa kamid ah in aad institution ka furtid had salahaan oo kale waxa jira dhakhtar la yiraahdo doctor dhagacade oo gaalkacay jooga wuxuu ka furay ama 2000 meelahaas wuxuu ka furay isbitaalkiisa waagaas magaalada aad buu uga soo baxsanaa hadda laakiin magaalada shay uu dhaaftay isbitaalka laftirkiisa agtiisa waxa ku yaala wuxuu ka furay jaamacad wuxuu leeyahay team sports ah oo maal geliyo oo oday dhan oo package ah cilmigii uu bartay uu ku takhasusay macallin buu ka yahay arday buu tababaraya arrimaha bulshada ka qayb qaadanaya waa zaciim weyn oo bulshada meel uga aaday xataa waxa jira barnaamij aan ka sameeyay YouTube-ka ku jira daartan waa dhageysan kartaa musaac amal weeye Abdullahi Bootan oo qoran YouTube-kayga waa ka fiirin kartaan doctor dhagacade halkaas aad ka arkaysaan wax badan oo waxa ku jira maxaa la jiray talooyin ah oo ku saabsan cilmiga iyo waxbarashada iyo aqoonta marka qofku marka uu fil bulshada uga aado wuxuu noqonayaa qof meel uga aaday bulshada dhibaato walba saaxday sheegnay oo nahaysata waxa jira
cid booskeedii ay bannaan tahay oo la rabo in la buuxiyo sidaasaana ahmiyad u leeyahay qofku inuu takhasuska uu dooranayo uu ka fiirsado uu ku dhiso macaayiirtii aan soo sharaxnay oo kala duwanaa kadibna uu sidaa u arko ma arkaysid qof bartay fildi uu jecel yahay oo baagamuudo noqonayo qof baagamuudo hadda aragtid fildi muquunaa uu galay fildigiina waa waxbarashada waa ka soo dhamaatay wuxuu rabaa oday kuleeta geeto gacanta qabta meelaha la wareego dhahay maadooyin ninka shaqaysiiyo Soomaa iyo gabarba marka mashaariicdaas iyo afkaarta waaweyn oo nololeed baa la rabaa qofkii inuu ooga talagalo marka uu sida u fakarayo ma dhici karto qofka in uu noqdo qof seegseega waxa lagu leeyahay waa jaamiciintii oo darbiyada fadhiyay jaamici ma aha dadkaas waxay jecel yihiin ma aysan baran sababtoo ah maanta technology baa jira fursadaha jira maanta fursadaha jira oo cilmiga ka jira waa fursado aan inaba caadi ahayn laakiin waxa loo baahan yahay dadka fursadaha galaya in ay ahaadaan dad filliga ay barteen ku doortay xiisa ku doortay jacayl iyo rabitaan waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah marka qofka takhasuska iyo filliga uu baranayo dadaal intee la eg baa looga baahan yahay inuu ku bixiyo salahaan kale filligii baa dooratay dadaal intee la eg baa laga baahan yahay qofku waxa looga baahan yahay horta inuu wax akhriyo waxa la yiraahdaa qofkii bishii waxa la rabaa celcelis inuu akhriyo laba buug oo akhrinayo waxa la yiraahdaa halkii buug celcelis waa inuu noqdaa 200 page يعني بشي waxa laga rabaa 400 page in akhrisid waa waqti hadii culture ahaan isbartid waa ka kori kartaa laba waxa akhrin kartaa 2 buug 3 buug 4 buug akhrin kartaa in marka dhaqanka akhriska la yiraahdo aan isbarno waayo akhrisku waa saaxiib aan ku hoday buugu waa saaxiibka ugu fiican kuma caayiyo kuma dacaayadeynayo kuma niyad jabinayo isku dhagimayo buuga mar walba isku ku kala furmaya kuwa adkaynmayo in waxa la rabaa marka qofku filliga uu baranayo 100% waxa uu akhrinayo inuu akhriyo social media isticmaalna internet ba isticmaalna xataa dadka friends kala noqonaysid oo ku darsanaysid follow gareynaysid ha noqdeen dad filligaaga asxaabtaada inay ku jiraan dad filligaaga expert ku ah waayo dadkaas waxa ka baranaysaa wax badan oo aad ka barateen jaamacadaha iyo meelaha kale iyo buugaagta aad ka barateen waayo qofkii asagii baa wuxuu experience iyo waayo aragnimo socoto package ah marka waxa loo baahan yahay qofkii fillagu baranayo inuu 100% akhriskiisa ka akhriyo 100% kontonka kalena in uu maaragtay kala duwo waxyaabaha kale oo maxalli jiray loo baahan yahay waxa kamid ah in uu 100% qofku waxyaabaha hobbiga salaana madadaalada iyo waxyaabaha aad isku badin qofka loo baahan yahay naftu caajis iyo waxa wahsiya ku dhaca laakiin waxa la rabaa in aad isku badin maanta dhan hadii waa la fiiriyaa YouTube-ka hadda wuxuu leeyahay history buu leeyahay isfiir YouTube-kaaga history-ga eeg history-gaaga hadday haystaan waa xaalad khatar ah ku jirta hadii 100 video aad bishii daawatid oo 100kaas video ay ka mid tahay 80 heesay yihiin oo qof loo yaabaa tahay hadii fanaan ma noqonaysaa qaamaya waxa loo baahan filliga baranaysa ta computer baranaysid ina computerka casharadiisa daawatid caafimaadka daa baranaysid casharadiisa ina daawatid channelada ugu khatarsan waxyaabo cajiibka waxa kamid ah yar waxa jira Umar Jibraan la yiraahdo oo Sacuudiyaan ah oo caan ka ah social media ninkaas wuxuu yiri waxyaabaha ugu badan aad maaragtay aqoontiisu u dhisan tahay waxyaabaha uu ka hadlayo waxa kamid ah wuxuu yiri waxyaabaha aan aqoonteeda ka kororsaday akhriska kaliya maaha wax ugu badan daawashada jaamacadaha adduunka ugu sareeyo oo dhan hadii tahay Harvard hadii tahay Cambridge hadii tahay MIT kulli jaamacadaha adduunka ugu sareeyo Oxford kulli waxay leeyihiin YouTube channel filliga aragtidna waa ka helaysaa lecture khubarada adduunka ugu dambeeyay ba halka lecture ka bixinaya buugaagtooda ku soo bandhigayaan maanta aad u sahlan technology ba haysanaa online ba ka dalban karnaa waxa la jiray Dubai ba ka dalban karnaa dadka qaraabada hadda waxa la yiraahdaa Dubai marka qof dibadda ka yimaanay waxa la dhahaa iPhone isoo qad bal Soomaha
waxa la dhahaa buugaagta loo dirsadaa oo qofku waxa la rabaa in uu filliga u baranayo buugaagta ka soo baxda inuu la socdo waa ka hor dhacay qodobka waa inoo soo socda qofka waxyaabaha kale muhiimka waxa ka mid ah wax kasto akhrinaysid inay noqdaan boqolkiiba 50 hadaaytana waa sheegnay 50 gaas hadii laba buug ay tahay buug waa inuu noqdaa takhasuskaaga inuu noqdo waxyaabaha kale muhiimka waxa ka mid ah takhasuskaaga tababarada ku saabsan in aad maaragtay aad qaadatid tababarada maanta waxyaabo cajiibka covid-ka waliba xanuunka covid-ka dheeraa waxyaabo soo kordhay waxa ka mid ah in online kalaasyadii oo dhan Zoom baa lagu helay kalaasyada qaybtooda free baa lagu helaya Telegram-ka oo kale waxa jira hadii aad raadisid filligaaga filli walbaba in laga helo dad experts ah oo mawduucaas iyo filliga aad baratay si aan caadi ahayn u sharaxaya marka waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah in qofkii uu cilmigii raadiyo input kaliyo uu san noqon maada karaahiye ah oo meeshii jaamacadda ahayd intuu aado soo dhageysto baraayo kugu dhacday hadhow maalmaha imtixaanka xogaa orordo si hada uu karaahiye noqotay annaka filliga uu ku karaahayanayo kuma soo dhaweynayo dakhli ka helamaysid magac ka helamaysid khabiir ku noqon maysid saa u nacday uu ku nacaya laakiin hadii aad jeclaatid oo waqti aad galisid waxa ku noqonaysaa qof looga dambeeyo expert marka waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah in qofku waxa la yiraahdaa sanadkii ilaa 3 tababar waxyaabaha muhiimka hadda wadanka jira waxa ka mid ah hay'adaha iyo institutionada caalamiga ah tababarada jira oo filiyada qaybtooda laga qabto caasimadaha lagu qabto garow lagu qabto muqdisho lagu qabto hargeysa inuu qofku ku xiran community-ga filliga uu baranayo haduu computer baranayo caafimaad baranayo saaxiibadiisa dadka expert-ga uu ku xiran yahay sababta waxa ku siinaya wax badan oo hada meel kale ka helin asxaab bay ku sameeyaan filliye ku sameeyaan wax badan bay ku sameeyaan caawimada waxyaabaha kale muhiimka waxa ka mid ah waxa la yiraahdaa tababaradaas 3 tababar halkii tababar waa inuu yahay 15 saac oo tababar soconaya tusaale ahaan oo kale isbuuc oo kale sanadkii 3 isbuuc oo kale hadaa tababar filliga ka qaadatid hadii waxa u malaynayaa waxa ku noqonaysa wax laga yaabay dadka qaybta dadka expert-ga waa weyn ayagu waa weyn bay tababarada aad wuxuu ku leeyahay caafimaad u bartay Nairobi aadaya tababar mawduucaas ku saabsan baa jira ama Dubai baa aadaya ama Ethiopia aadaya ama waxa laga yaabaa Yurub Talyaaniga inaa aado uu ka soo qaato marka waxyaabaha marka qofka caadiga tahay inaad tababar u aadid meelaha waxay kula noqonaysaa qof kibray hay'ad caafimaad baa loo aadaa xaalad adag baa loo aadaa dibadda baa tababar baa aadi karnaa laakiin marka aad filliga baratid waxa laga yaabaa inaad lacag ku bixiso sababtoo ah cilmiga waxa weeye wax ka qaalisan oo la maal gashto ma jiraan waxyaabaha kale muhiimka waxa ka mid ah macnaheedu totalka saacadihi weeye halkaas 45 saacadood qofku waa inuu tababaradaas qaataa waxyaabaha muhiimka ayagana waxa ka mid ah shirarka jira iyo seminaaro caalami ah oo laga qabto filli walba su'aal ahaan kale aniga IT-gaan bartay ama technology-ga shirar baa jira laga qabto shirkadaha qaybtood gaar bay u qabsadaan sida hadda Samsung Apple shirkadaha shirar baa jira ay qabtaan adeegyadooda ku soo bandhigaan shirar waxa jira caalami oo isugu yimaado sida hadda shirar waxa jira qofka technology-ga barta Dubai oo kala lagu qabtaa GTEx la yiraahdo waxa lagu soo bandhigaa teknolojiyada ugu dambeysay oo ku saabsan teknolojiga ku saabsanay iyo cilmiga ka gaar dad experts ah isugu keena waxa soo dhan waxa ku gaari karaa inaad horta fahamka haysatid hadaa fahamka haysatid waxa laga yaabaa maalin adoo iska xiraana laakiin la socda shir hebel baa socda qodobadiisi fiidiyoyadiisa waxyaabaha hadda cajiibka waxa ka mid ah shirkii adoo aan aadin baa la socon karaa kii notice-ki lagaga hadlay shirkaas ayagoo fiidiyoya ah YouTube kala soo galinaya YouTube-ka kala soconaysa ma khasab inaad safartid sababtoo waxa laga yaabaa inaad dhaqaale badan kaaga bixiso laakiin hadii qodobada dhageysatid maqaala laga qoraa maqaaladaas laftirkooda inaad la socotid waxyaabaha kale muhiimka waxa ka mid ah shirarkaas waa sheegnay seminaarada waa sheegnay waxa jira sidoo kale inaad la socotid cilmi baarisyada ugu dambeeyay update-ka ahaa oo filliga ku saabsan inaad la socotid aad bay muhiim u tahay waayo casriga maanta adduunka la joogo waa globalized aad buu isugu xiran yahay adduunku oo Afrika hadda sidii hore ma aha wadanka hadda Kenya oo kale wadamada xagga technology ugu horeeya waxaan tusaalaha u soo qaadanahay data oo idin sheegay hadaa tala iga qaadaysa computer oo barta ay dhihna shirkadaha technology-ga adduunka ugu horeeya waxa lagu qiimeeyaa wax la yiraahdo lacag ahaan oo kale qiimeynta marka lagu sameeyo shirkadaha marka $1 billion gaara $1 billion waxa la dhahaa unicorn baa la dhahaa Afrika hadda marka ilaa 3 shirkadood baa waxay gaareen unicorn
oo filliga heerkaas sare gaaray marka shirkadda Unicorn gaadhay shirkadaha Unicorn gaaray mid kamid ah waxay ku taallaa Kenya ku taallaa marka Kenya dariska aan ahayn baaba heerka teknoolajiyada ka gaaraysa hadii aad marka la socotid oo meelaha shirarka ka dhacay barnaamijyada lagu soo bandhigay waxa laga yaabaa inaad barka maalin oo kale inaad xataa dhulka u bartid oo Kismaayo inta ka wareegto xagga Kenya inta ka gashay shirkada qayb gashay sababtoo ah qofku wuxuu u jecel yahay waa aragteen culimadii hore diinta islaamka hal xadiis baa laga yaabaa inuu intaas oo wadan ninku inuu ka safro Masar ka safro oo Suuriya u aado ama Suuriya ka safro oo Ciraaq u aado su'aal hal xadiis u soo maaragtay u soo faa'iideysto marka سائدين شيء إنه حواي إنه قف كل صعوبة في اللي وأبديت أها ولا صعوبة وحيابها كسر قرني وحيابها مهم كأو حكم ذا مجلدها مجازين مجلدها وحيابها أدونك وحلوقة ما يبغاه أو مهم كأه وضع مثلا هذا مجلدها أدبويه أو بحال جيابه سنة كهذا مجلد انستيتيوشنada مجلadaha joogtada soo saara waxa ka mid ah institutionka hada la yiraahdo siyaasadda wax ka qoro la yiraahdo heritage oo hada ma shalay musadaraad bay shirar waxay ka bilaabeen oo wax arrimaha dastuurka waxyaabaha xamar ka bilaabeen marka مجلدوه waxay ku siinayaan wax badan oo xog ah oo kooban salahaan oo kale hada waxyaabo cajiibka waxa ka mid technology sahlay in majalladii ayadoo electronic ah helaysay waxa laga yaabaa majalladii inaad $30 siisatid laakiin maxaa ku jira $30 $30 waxa laga yaabaa inaad laba isbuuc oo kale aad ku maaragtay aad ku shopping garaysatid laakiin marka majallad kala baxday waxa ka helaysaa cilmiga ugu dambeeyay oo sanadkan adduun ku soo kordhay filliga oo ku saabsan waxa noqonaysa qof update ah oo maaragtay ninka ku horeeya majalladaha adduunka caalamiga oo muhiimka waxa ka mid ah مجلد تايم أو كله أو بحثها أدونك وضنك وحوق بدن بوحو سمية معاييرته مجلد تايم أو كله وحيابها يسمى إنسان وحيابها اللي يرتسال عنه كله بقولك قف أدونك وصحامين تكلم بالسمية مجلد أساسا سوى مجازين ويب سايت بيلاده هاي هل كاسات كلا سعنيسة هذا سؤال عنه كله برنامج سوشيال ميديا أو كله مهم كأو حكم لقفك إنه سميسته لينكد إيه وحليره فيسبوك أو والله لنا هاي يوتيوب كل واحد لينكد إيه وبروفيشنال وحال وسو شير قرية مقالة شقوينك وحياة بدن بقى وسو شير قرية marka su'aal ahaan kale aan waxaan follow gareeyaa time oo kale maqaalada ay soo galiyaan maqaalada qaybtood maxaa la jiray maqaalada qaybtood waxay ku sameeyaan ayagoo free ah bay soo galiyaan maqaalada qaybtood lacag baad ku iibsanaysaa laakiin maqaalada qaybtood waa free marka iyagana inaad la socotid aad bay muhiim u tahay waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah takhasuskaaga dadka khibrada ku ah inaad la socotid saahdaayta sheegnay filli walbaba wuxuu leeyahay rag adduunka ka sheegan ama psychology ha ahaato ama caafimaad ha ahaato ama technology ha ahaato ama siyaasad ha ahaato macaahid baa jirta expertiga adduunka lagu casumo oo iskaashano ku sameeya waxyaabo badan oo hadda prestige ka hadlay laga yaabo in loo safri jiray hadda waxa laga yaabo YouTube ayadoo free ah inaad ka heshid laakiin waxaas dhan maxaa ka xiga inaad la socotid hadii maanta dhan aad madadaalo daawanaysid cilmigaas dhan waa ku sheegaya laakiin waxa loo baahan yahay inaad la socotid dadka khibrada ku ah ugu yaraan oo kale waxa la yiraahdaa laba khabiir oo kale oo filliga ku tagay inaad la socotid baa muhiim ah inaad la socotid website-yada ay leeyihiin dadka badan expertiga ah website buu samaysanaya aragtiyadiisa waxyaabo uu baaray kulligood halkaas ku soo sheer gareynaya iyadana waa very important aad bay muhiim tahay waxyaabaha kale muhiimka waxa kamid ah dadka expertiga buugaag bay qoraan buugaagtaasna inaad la socotid tababarka xogaa inta waa ka dheeraa marka khibrad ahaan waxaan leenahay tababarada marka ay dheeraadaan oo kale inaan soo noqon marka intaas aan ku soo koobaynaa waxaan isleeyahay inta ugu muhiimsan waa ku farqareysaan lambarkaygan waa haysaan oo fariintii waa ku soo dhacday marka waxaan sameynaynaa intaas aan ku soo koobaynaa daayid xataa dadkii nala soo hadlay waxa kamid ah gabdho waxay noo sheegeen in habeenkii in la gaaro xogaa ay caqabad ku tahay marka inta ugu muhiimsan almost waa intaas waxyaabo kale waxa jira ku saabsan shakhsiyadda qofka iyo maxaa dhihi jiray takhasusaadka ku fiican yahay oo kale kuwaasna insha Allah ayagoo documenti aan diyaarin doonaa qofka u baahan oo soo diri doonaa hadii la yiraahdo ama isagoo hay'ad koobiya meelahaas maktabadaha u dhigayna intaas aan ku soo koobaya wixii su'aalo ah hal iyo labo maqribkii baan haye waan soo dhaweynayaa assalaamu calaykum ya su'aal qaba. Any question?
okay halkan insha Allah ilaa gaaray halkan institutionka tababarkan qabtay freega ah waa Aglol Academy waa institution cusub insha Allah taala waxyaabaha aan bulshada ugu talagalnay waxa kamid ah inaan u diyaarino barnaamijyo professional ah oo tababaradaas ay kamid yihiin waxbarashada ay kamid yihiin maxaa la jiray luqadaha insha Allah waxaan keenaynaa koorsooyin luqadaha kulligood gadaal baa ku soo ogeysan doonaa dadka fariimo oo diranaa laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye hadda inaan is baranno oo kooraskaas institutionka Aglol Academy insha Allah taala xataa waxaan ka fikiraynaa inaan sameeyno iyadoo waxbarashadii online waxyaabaha hadda tan maanta dad qaybtood soo weydiin waxa laga yaabaa dad baa arboosaas joogin dad baa qaran jooga dad baa laga yaabaa ka meelaha in joogaan inay dhahaan tababarka isaga ah online lagu helayaa ama live lagu daawan karaa bay weydiinayaan oo hadda waxyaabaha adduunka cilmiga lagu barto waxa kamid ah data dhammaan ka sheekeynayna in ayado online la helayo waxa isku dayaynaa marka waxbarashooyinka koorsooyinka qaybtood inaan ka dhigno insha Allah kuwa online ah intaas waa ku daraynaa aad baa mahadsantihiin wixii su'aal inay weydiistaan waxay ka tarjumaysaa inaad la socoteen class marka su'aalaha aad baan u jeclaan lahay waliba gabdhaha inay soo weydiiyaan haye any question yes yeah laba takhasus very good question laba takhasus horta waa anaga hadaayta shaxda soo bandhignay haduu rabo qofka laba takhasus inuu barto uu baran karaa oo asaga khusaysa laakiin waxa fiican qofka inuu hal takhasus ku maaragtay in barto marka aan leenahay waa anaga jadwalka sameeynay waxa la yiri 10 ilaa 10 takhasus gali oo aad danaysid qof wax u daneeyaa oo tartansi kan dhibcaha badan qaata baa laga yaabaa in maaragtay aad bahalkiisid waxyaabaha kale oo aan sheegnay oo danaynta iyo fursadda iyo awoodda iyo xeeldheerida iyo faafidda iyo waxyaabahaas ahna baa ku kala saaraya marka isku warka bahalkiisid laba takhasus waqtiga hadda la joogo waa la baran karaa qofku dee wuxuu jecel yahay awoodda insaanku aad bay u furan tahay su'aal ahaan oo kale Imaam Shaafici wuxuu ahaa nin maaragtay cilmigiisu aad u sareeyo oo kale buug waxa jiray oo gabayga diiwaan Shaafici la yiraahdo bilowgiisa marka waxa ku qoran marka Imaam Shaafici fiqiga ku aragtid waxa u maleynaysaa fiqiga ma aha inuu wax kala aqoon oo expert ku yahay markuu gabayayna waxa moodaysaa gabiyaad maaragtay expertiya marka qofka asaga ku xiran tahay hadii uu awood u leeyahay passionate u yahay inuu laba field isku barto waxa alla kugu daray dadaal badan bay kaaga baahan tahay oo waxaas ina kulli martid oo ah ina baratid jaamacad ahaan expert ahaan shirarkii khubaradii buwaagtii mashaariicdii waxaas oo dhan wadadaal marka waa wax maaragtay qofka ku xiran tahay والله هذا سؤال آد مهم هو والدك ساعداية الشيء وانا درين سنة أخنتها والدك وحا بار اللوغو نقضاء وحا أساق خصية سؤال أهان وكله هدو والدك يراهدو هذا ويل تهي أما قبرأة تهي قفك بورسو وأكتها قفك أنا الإنسان فعلا مكيه ليسا قفك من المستقبل كسم كل يارس هو أذيك مقورسان قفك أما أب أذيك مقورسان قفك أني أسرع أسقورسان أنا جي أخصيصا والدك وحي أذيك أخصية قاميسا لكن سي أساق قوان كهذا ماله والدك احترام لي حق دور بولي والدك نقول والد بان نحي المها يروح يجعلهين وويا لا والدك هدي وضو أما مامدو كان مغلوي والدك وحول بو كلا وكسبتا odayaal soo kaxayso laaluul samee xagga soo mar waayahay le fadhuugo adiga farsamo lagaaga baahan yahay waalidka waxa uu saa ku leeyahay waxa weeye la jecelo asaga adiga ka qabo waalidku waxa ugu muhiimsan waxa waaye waxa la qofka bil aadanka hal qof uu jecel yahay inuu ka fiicnaado waa ilmihiisa waxa uu saa ku leeyahay waxa waaye la jecelo uu qabo
marka waalidku haddii uu culays kugu saaro in aad fildi baratid isku day inaad meel walba u martid anuma dhiirigelinayo inaad waalidka la caasiyo sidoo kalena ma dhiirigelinayo waalidka wax walba in laga yeelo sababtoo ah waxa aad baranaysid waxa la rabaa tababarka inaad inta mawduuci u qaadid oo qodobaysid inaad la wadaagtid insha Allah muuqaalka hadda waa la duubayaa internetkana waa gelinayna haddii ilaahay yiraahdo tababarka waa share gareyn doona social media internet kulli waa la gelinayaa wacyigelintana waa sii badnaa insha Allah waxa ugu muhiimsan waxa waa adduunka wax walba oo lagu tababartaa waxaan filayaa galabta tababarkan wax badan oo muhiim ah inuu idin iftiimiyo takhasus ku saabsan waxa laga yaabaa qofku inuu islaha wallahi bilaa saaxiibada dhan filligaas u baday iskin kale meesha aad cid ku dareemin laakiin marka aad sida u fikirtid ilaa waxa ku muuqanaya konton sano qofka maanta ka fakaraya tababarka qaata waxa u soo baxaysa in uu ka gudbay levelkii ahaa warjaamacad aad 4 sano kadibna meelaha oday kuleetiga ku qabta hal meelaha kule istaaga waxa u soo baxaysa qofkii in uu ka fakaro waxa laga yaabaa asoo jaamacad ku jira inuu business sameeyo